waxaan dar ilaahay walaasheena dar ilaahay walaalo u nahan aad tahay islaamnimadaana walaalaysay soomaalinimadana walaalaysay hooyanimadaana walaalaynayso walaasheena tahay aadaa kaaga danqanayna waa kula dareemayna xanuunkaa qabtid alxamdulillah waxaan ku leeyahay qalbigaagaas wanaagsan oo ilaahay ku siiyey سان ayaa lul channel waaye asxaabta channelka ay ku xiran waxaa idin leeyahay soo dhawaada galabta maxaa idin wadaa galabta hadda anoo bixi rabo video yaan daawaday videogaas qiiro badan igaliyay waana bixi waa meesha oo socdayna ma aadan sida runta waxaa daawaday walaashay Faadimo Buraanbur videoga ugu dambeeyay soo duubtay hadda soo gelisay Faadimo waxaan ku leeyahay goordhow iyo goordhow ma ahayn marka videoyaasha daawanay waligay laakiin kama soo hadlin abaay macaanti waxaan ku leeyahay waa ku arki jiray dhibaatadu waa la socday video aad soo dhigtay aan la soconin ma lahayn duco kuma yareen oo lagu duceey hooyo Soomaaliyeed oo dhan way ku istaagtay maaragtay waa xanuunka waa kula wada dareemaynaa maaragtay maanta waxa qiiro igalisa videoga aad tiri marka hadlays ugu dambeysay hadalkaadi aad lahayd ilmaha maalintii nala tusaayay wiilka yar wuu ooyay iga aamusi hooy gabadheer wiilka yar wuu ooyay oo nin asaga ka weyn oo 20 jir ah baa qoorta qabtay waxa weey meeshaas waxa iiga cad in adigina wax gooni ay ku sheegayaan carruurtan ay wax gooni u sheegayaan laakiin Faadimo waxa ogaataa alxamdulillah horta gabar waxa taa iimaan ilaahay uu ku deeqay iimaankaada waxaan ku leeyahay walaale qalbigaada wanaagsan iimaankaada ilaahay ku siisaa idii ahaysatid hooyo dhan ma haysato hooyooyinka qaar ooliyada biyo isku daraan dharkay qaarkood tuuraan alxamdulillah ani waxaan hubaa farxad badan iyo wanaag badan inaa helaysid sababtay taa gabar duco ay ku yartahay ma tiito gabar ammaan ay ku yartahay ma tiito gabar wanaag oo dhan ilaahay dusheeda uu dhigay inaad taa u jeednaa meel walba culimada inay kaaga soo duceynayso waa u jeednaa ilaahay nama dayacayo oo gaalada uma hiilnaay inta annaga ilaahayna dayaco oo waxaa soo duca ay meel cidlo ka marto ilaahay gaalada kaagama hiilnaay laakiin ilaahay waxa waa imtixaanka waxa la mariyaa qofka mu'minka imtixaanka la mariyaa adaa imtixaanka lagu imtixaamayo walaashay waxaana taa qof aad u sabir badan imtixaanka la marinaayna 100% ka soo baxdo insha Allah maalinteedana waxa waa sugeynaa haduu ilaahay yiraahdo waxaan ogaa insha Allah maalinteeda maaragtay maalin farxad badan oo farxadeeda la qiyaasi dooni inay tahay haysdin ducada lagu duceynaa meel ka amarsa kullu isma dhahaysido waxa taa hooyo aad u iimaan badan annaga ayna carruurta naga maqneen wallahi billahi qaracanka aan qaracmo naga iimaan badan tahay ilaahu ku siyaadi abaa iimaankaada been ku sheegay maanta emotional aan noqday wax kalena walaashay kuma qaban kara intaas dadka hadlaayeen waa u jeedo ku soo duceyn jir sababta hadal badan waxa uma taro meel badan oo la soo fariisto maanta oo dhan maartaan isaan la dhaw kuma tarayso in lagu soo duceeyo muhiim ah ducada ay maaragtay halkaas ku gaartay inaan kugu sii kabna leh muhiim ah maanta waxaan ku leeyahay qiirada iqaad lama sheegi karo albaabka wallahi ka baxay ma bixin waa jooga labadeeda gabdhooda maasha Allah gabadha habrir wahay iyo gabadheeda garab joogan waxa ay ma bixeen ilaa aan videoga horta duub waxa way aad iyo aad emotional noqday marka videogaada fiirsaday isla markiina go'aan aan qaatay I think hadda waxa u maleynaa markaan dhaa waa duuba 50 minute amal ku jiro meesha marka waxaan ku leeyahay walaashay wax aan ku qabanayo oo duco maanta ka ahayn ma jirto qalbigaada wanaagsan inuu ilaahay qalbiga ku sii adkeeyo uu ku adeegay gabar ilaahay waxa taa qalbigu adkeey gabar ilaahay waxa taa ma aragtay wanaag oo dhan ilaahay dusheeda uu dhigaatay ilaahay ku mudayacay mana ilaahay waxa waa quruxda iyo wanaag inta meesha la soo fariisato
ku hadlaysid iyo kalsoonida ku hadlaysid ilaaha ku siiyey matid gabar jiljilicsan gabar waxaa tahay maasha allah abbaay macaanta waxaan ku leeyahay anigaygaan kula hadlahay 4 jeer waa hadda 4 jeer magaalada deganaa dadku way ogyihiin 4 jeer ay soo weerareen ay isku dayeen carruurtaa iib geenin hadda ka hor dhihi jirtay waa run waddankaana imaana carruurtaa iib keenaysaa maalinta lagu imaanaa carruurtaada barbaryaysaa hooy way disho hooyaha dhihinaa leedahay 4 jeer ay ugu soo maaragtay waraabo hilba loo soo daadiyay camal igu soo yaaceen ilaahay weyn oo waaxidka iga qabtay 4 jeer inta ii yimaadeen ee maalmo isaa igu dul wareegayeen buu ilaahay subxaana qaadirka dhinac iga mariyey alxamdulilah ilmo igamay qaadanin laakiin 4 jeer been idima sheegaa 4 jeer ay soo weerareen ee 4 jeerba mara iskuul iga soo dacwey maruu neighbor isoo dacwey maray maxaa la ilmaha dishay ay dhahaan wax walbo maaragtay alxamdulilah ilaahay geesu abbaay macaanta iga mariyey waxaan ku leeyahay faadumo abbaay macaantoy wax kale aan kuu sheegayo ma jirto waxaan dar ilaahay walaasheen oo dar ilaahay walaalo u nahan aad tahay islaamnimadaana walaalaysay soomaalinimadaana walaalaysay hooyanimadaana walaalaynayso walaasheenaad tahay aadaa kaaga danqanayna waa kula dareemaynaa xanuunkaa qabtid alxamdulilah waxaan ku leeyahay qalbigaagaas wanaagsan oo ilaahay ku siiyey ma dayacmaysa abbaay macaanto insha allah masaajid dunsan oo xeryaha qaxootiga dhadhaab ku yaal oo maanta sawirkiisa liisoo diray insha allah biidnillah kariim masaajidkaasa waxaan kuu niyeystay inaan dar ilaahay waxaa fiican walaalaha dar ilaahay iskugu damqado walaalaha dar ilaahay iskugu naxo walaalaha dar ilaahay iskugu naxariisto waxaa maanta aan niyeystay inaan masaajidkaas dar ilaahay sadaqo kuugu daro ilaahay dartii intaan sadaqo kuugu daro in la soo duceeyo duca ma yaro laakiin ninka afkiisa la saaran yahay ilaahay baa garanaya intaasoo culumo oo annaga naga maaragtay naga caalimsan oo culumaha soo duceynayso intaasoo hooyaa soo duceynayso duca ma yaro laakiin ducadii insha allah maalinteeda insha allah suun waa sugayna hadduu ilaahay yiraahdo abbaay macaanta waxaa ku leeyahay insha allah waxaa tahay hooyo qurux badan quruxda ilaahay kuu siyaadiyo maalintay fooshaada gaarto ilaahay foosha kuguma dhibo war degdeg ilaahay maaragto carruurta kaalaysa oo doonta waxba idin kuma hayn nala dhaha insha allah aan sugaynaa waxaan u maleynayaa adduunka dhan 4tiisa gees waa maalin ay farxad isqaadan doonto waxaa tahay gabar aad iyo aad loo jecel yahay hooyo tusaalan oo wada ah hooyooyinkoo dhan insha allah dhibaatada markay dhacdo ilaahay wuu jecel yahay dadku ku sabro hooyo sabar badan hataa ilaahay anaga dhigo adoo kale ilaahay adoo kale ha naga wada dhigo ilaahay adigana ha kuu saa'idiyo annagana ilaahay sabirkaadoo kale hana siiyo hooyooyinaana adduunyada waxaa waaye farxadda iyo maaragtay murugta way isdaba taala ilaahayow kuwa wanaagga le ku farxa ilaahu ha naga dhigin dhibaatada markay timaadana kuwa ku sabro ku qanacsanaada ilaahu naga dhig ilaahu walaasheena u saa'idi way kugu qanacsantahay rabbi oo raxmaan oo say kugu qanacsantahay ilaahayow oolaadeeda gaalada gacantooda uga soo bixi yaa rabbi yaa raxiim yaa rabbi ilaahu adaa ku baryeena ilaahu adaa casiise walaasheen wax aan u qaban karna maanta malaha intaas bis waa ku baryeena ilaahu baryada naga ajiib ilaahu baryada naga ajiib walaasheen ilaahu hayow rabbiyow raxmaano oolaadeeda usoo celi ilaahu farxadeeda usoo celi rabbiyow raxmaano carruurteeda ka maqanay kugu qanacsantahay way faraxsantahay walaasheen maalin walba meeshaasay soo fadhiisataa maalin walba halkaasay soo fadhiisataa iyadoo faraxsan ilaahu dhibaatada keentay ku qanacsantahay alxamdulilah waxaan rajaynayaa faadumo wax kastoo yimid waa ku qanacsantahay alxamdulilah saa mar walba dhib iyo dheefba alxamdulilah u dhehaysa alxamdulilah carruurtaadan insha allah adoo faraxsan halkaas aad noo soo fariisin doontaa maalin maalmaha ka mid ah insha allah waxaan rajaynaynaa inu mar dhow inuu noqdo ilmaha caloosha ku jiran ilaahay nagama tuso kuweena kalena ilaahay nooga soo celi ilaahay nagama tuso gacantoodan ilaahay nagama saaro ilaahay cadowga ha naga qabto annagoo dhan meel walba aan joogno walaasheen ilaahay carruurteeda cadowga ha uga soo celiyo insha allah odageedana insha allah allah u barakeeyo hadduusa wanaagsanen faadumo meeshaa ma soo fariisateen odageeda hadduu nin fiican uusan ahayn oo garab istaagayo meeshaa faadumo intay soo istaagto may hadasheen qof aanan sibood haysaninna wanaag keligii ma qabto siboodka aad ka haysatid xaajigaadan waxaan ku leenahay asagana ilaaha kuu barakeeyo walaalkiin waxaan leenahay ilaahay qalbiga adiga walaasheenba ilaahay waxaa waay niyadda ha idin adkeeyo waxaan idin leenahay ilaahay awlaada maaragtay ha idiin soo celiyo waa duceynaynaa wax kala samaynayna malaha insha allah sabirkiina kuwa ku qada ilaahay idinkama dhigo sabirkiina kuwa ka qada ilaahay idinkama dhigo kuwa ku qada ilaahay idinkama dhigo insha allah walaashay waxaan kula intaasoo kusoo gabagabeynaya maanta emotional iska ahay walaashay faaduma aad uga qaracmay markay soo fariisatay hadalladeedii
cunuga yar oo maaragtay qoorta la qabtay oo welina guryihii gaalada ku sugan ma rab inaa kasii hadhadlo oo maaragtay aan emotional dadka kasii dhigo oo dadka maaragtay aan farxad walaashay iyadoo wax kastoo dhibi jiro ay dhibaatooyinka qaar ay nala sheergareen walaashay maalintii arrintaas ay soo aragtana lama sheergareen laakiin maanta way hayn weyse way nala sheergaraysa ayadii waxay isku dayaysaa inay ayada keligeed isku koobto ee dadka ay xitaa daamajka ka ilaaliso walaashay saa dadka u ilaalinaysa allah kuu ilaali adduun iyo aakhiro ilaahay kuma dayacaayo ilaahay faadumay kuma dayacaayo dadoo dhan way ogyihiin ilaahay inuu ku dayaceen gabar waxaa tahay mar walba la dhaho gabadha sabirka badan magacaadaaba la dhahaa faadumoy insha allah biidnillahi kariim intaas uga baxaya waa kuu soo duceynaya insha allah sadaqadaasna waxaa niyeysta ilaahay dartii inaan u bixiyo in caruurta gacanta gaalada ku jirto walaasha iyo walaalkay ka baqan in awlaadooda ilaahay si degdeg ugu soo celiyo qofkii afkiisa la saaraya ilaahay og laakiin masaajidka bacda dusha ay ka saaran tahay qoraxda iyo roobka wax ka celiya culimmadaana haysan ay siigada iyo busta iyo qoraxda meeshaas waa meesha ilmaha qaar ku dhalay aan ku noolaan jiray meel aad xero qaxootiyo aad u dhib badan oo kulul ay u tahay masaajidkaas waxaa laga soo sheegay inuu aad u dayacan yahay roobka dadka meelay ka galaan markay tukanayaan inaysan haysanin insha allah waxaa niyeysta inaan wax ku daro walaashay darteedaan u niyeysta ilaahay dartii waxaa walaalaha dadka ilaahay dartii isku jecel oo ilaahay dartii wax iskugu qabto oo ilaahay dartii markay dhibka taal iskugu damqado dadkaas uu ilaahay ugu jecel yahay insha allah ilaahayna ha naga aqbalo hadduu ilaahay yiraahdo insha allah faadum salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khayrankaa idinkaga tagaan